iyadoo maalmihii u dambeeyay lagu guda jiray wacyigelin ballaaran oo la doonayo shacabka in laga wacyigeliyo xanuunka khatarta baan ku hayo dunida ee coronavirus ayaa deegaanka Habarijeshay oo ka tirsan gobolka Saraar waxa laga sameeyay olole ballaaran oo dhanka nadaafadda kaasoo kor lagu qaadayo fayadhowrka deegaankaasi. ololahan ayaa waxa hogaaminayay maamulka deegaankaasi iyo ururada dhalinyarada ee halkaasi ka jira. gooreenba halkaasi waxa ka hadlay gudoomiyaha deegaankaasi Habarijeshay Xili Maxamed Xasan Xanuuno ka tirsan guddiga deegaankaasi iyo Xasan Shaqale oo ku hadlayay afka ururka dhalinyarada ee midnimo isagoo qayb lixaad la ka qaatay ololaha nadaafadda. maanta halkan waxaan isugu soo baxnay olole nadaafadeed annagoo ururadii deegaanka iyo dadweynaha deegaanka ku dhaqnaa waxaanu garanay inaanu ka shaqeyno nadaafadda iyadoo ay jiraan xanuuno halis ah oo ka jira geeyada kale lagu soo sheegay meelo badan deegaanka Habarijeshay waxaanu markaa leenahay dawladda u sheegaynaa maamulka gobolka Saraar in laga shaqeeyo fayadhowrka deegaanka oo iminka qashin badan tuuray roobno iska daayaan inaanu ka helo wasaaradda caafimaadka wacyigelin ballaaran oo ay deegaanka keento si aan uga hortagno xanuunkii halista dadku uga hortagaan deegaanka ururka midnimo development organization la dhaho iyo ururo kale oo urur haweena oo laba urur oo kale ay nagala shaqeynayaan deegaanka bulshada deegaanka inaanu ka helo qalabkii inaanu ka helo gaadiidkiina qashinka inaanu godad qashin loo qabo oo aanu ka helo annaguna aanu sii wada doono insha Allah. hawshaan maanta halkan isugu soo baxnay haddaanu nahay magaalada Habarijeshay dhammaan waanu u dhannahay waa taa nadaafadii laga shaqeynayo waxaanu codsanaynaa oo doonaynaa wax alaale wixii naga dhiman in nala qabto cudurka waa la sheegayaa waana wax alaale wixii dawladdu amarkii ay bixisay dad waanu qaadanay waana ku shaqeynaynaa annana wixii naga dhiman in nala ku soo daro baanu diyaar u nahay waxaanu kala codsanaynaa maamulka degmada ee gobolka magaalada qashinka waartan waa laga gurina waa gubayna waxa jira dad ka hor yimaada qashinka iyo nadaafadda loo haysto oo suuqa inuu ka xarayaan ogolayn suuqa soo qaadayo qashinka inuu dhigo aan ogolayn oo looga taag waay waxaanu ka codsaynaa qofka aanu ku soo dacweyna qashinka iyo nadaafad xumada in talaabo laga qaado oo wax laga qabto aan ka codsaynaa maamulka gobolka iyo degmada waxaanu kala codsanaynaa magaalada walba noqotay qashinkii kooriyool dibadda loo saari karo haddii dhexdeeda lagu wada gubana deeqiiqii iyo qurmuunkii oo sii keenaya dhibaato waxaanu ka codsanaynaa inaanu xilliyada aanu u baahanay aanu kaambeega qaadana nadaafadda in iska rogo aanu ka helno degmada aanu qashinka dibadda isaga saaro aanu xanuunka waddanka ka jira dadku waxaaba aaminsan markii hore muslimka ku dhici maayo dee muslimkiina laayo koo ka sii marka waxaa loo baahan yahay ilaah baa wax badbaadiye dee wixii ama saabuun oo kale wax afka lagu xidhanayo waxyaabahaana dee in dee lagu dadaalo wixii la hayo. sidoo kale qaar ka mid ah haweenweynaha deegaankaasi iyo ururada kale ka jira halkaasi ayaa soo dhaweeyay ololaha ballaaran dhanka nadaafadda ee kor lagu qaadayo fayadhowrka waxayna sheegeen loo baahan yahay in ololahan la sii wado maadaama lagu jiro xilli ay dunida ka jiraan xanuuno baahsan kuwaas oo dhibaato ku keenay bini'aadamka isla markaasina sida kaliya laga hortagi karaa ay tahay iyadoo kor loo qaado nadaafadda iyo fayadhowrka. jooga bulshada Habarijeshay maxay hayday oo ay ka mid yihiin ururka dhalinyarada hooyooyinka maxay hayday guddida hayrka iyo guddidiisa maxay hayday halkan waxay isugu soo baxeen nadaafadda ka hortagga waqtiyada roobabka oo diyaargarowga caafimaadka maxay hayday sidii wax looga qaban lahaa maxay haytooyeen waxaanu dawladda ugu mahad celinaynaa waxyaalihii ay noo keeneen hadday tahay wax kasta oo ay noo qabtaan iyo wax kasta oo ay noo keeneen dawladdu gobolka yaga Saraar waxaanu halkan ka sugaynaa xanaanada haddii maxay haytooy waana lagu ballan qaado insha Allah waanu sugaynaa hadday tahay xanaano hadday tahay rug boolis aad iyo aad baanu wixii naloo keenayo waa aanu u soo dhaweynaynaa anaguna rajo wacan baanu qabnaa. waxaanu doonaynaa wax qabad waxaanu doonaynaa tayo dawladda anagu waan hagaajinaa wax xumaana kuma aanu samayno waxaanu doonaynaa inaan maxay tahay dhakhtar nolo sameey rag boolis ma lihid aan wax ku qabsano iminka iskaa wax u qabaan ku qabsanaynaa xaafadahaanu ka soo uruurinay haddaan haweenkana guri aanu ku shirro ma lihin guryaanu kiraysanay oo aanu iska uruurino markaa waxaanu doonaynaa in wax naloo qabto aan wax qabad baanu dawladda uga baahanahay. jaamac boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland aynaba